السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة برنامج كيني تلا دختر waxaynu ku soo qaadan doonaa dhagaxaanta kaliyaha iyo kaadimareenka fadhiista ee loo yaqaano kidney stone. Inta aynaan gudagelin, haddii aad ku cusub tahay channelka ka mid noqo asxaabta. Dhagaxaanta kaliyaha iyo kaadimareenka fadhiista inta badan waa mid ku badan dhulkeena, taasoo ugu wacan tahay cimilada iyo qaab nololeedkeena. Haddaba waa maxay dhagaxaanta kaliyaha fadhiista? Maxayse ka samaysan yihiin? Horta dhagaxaantani maaha sida kuwa ciidda ka samaysan iyo macdanaha kale ee aynu dhulka ku aragno. Kuwani waa kuwo ka duwan, isla markaana ka jilicsan, kana samaysan macdan laga helo kaadida iyo jidhkeena. Taasoo aynu ka helno cuntooyinka aynu quudano. Dhagaxaantani waxay leeyihiin dhowr nooc, waxaase ugu muhiimsan 4 nooc. Calcium stone oo 75%, Strophanite stone oo 15%, Uric acid stone oo 6%, iyo Cystine stone oo 2%. Marka ka ugu badan waa calcium oxalate, kaas oo samaysan marka uu qofku cuno cunto asidadu ku badan tahay ama aashitada ku badan tahay, ama dhadhanaanku ku badan yahay, ama cusbadu ku badan tahay. Calcium oxalate sideedaba waa cusbo aashito wadata. Salt of oxalic acid baa loo yaqaana marka luqadda caafimaadka laga hadlayo. Nooca labaad waa Strophanite stone. Noocan waxa keena waa caabuq ku raaga kaliyaha ama kaadimareenka. Waxaa loo yaqaanaa chronic urinary tract infection. Waa caabuq kaadimareenka oo muddo qofka hayay ayaa keena. Marka bakteeriyada keenta caabuqaas ayaa waxay kaadida ku sii daysaa macdan loo yaqaano ammonium. Ammoniumtaasina waxay la falgashaa macdan kale oo kaadida laga helo oo loo yaqaano phosphate. Falgalkaasna waxa uu sababaa inuu dhagax samaysmo. Nooca saddexaad ee soo raaca waa Uric acid stone. Noocaasina inta badan waxa keena hilibka kalluunka iyo macdano kale oo badan. Maxaa keena in dhagaxaantu kaliyahaaga fadhiistaan ama ay ku samaysmaan? Kolley wax kastaba waxbay ka yimaadaan. Markaa sideedaba dhagaxaantu ma fadhiistaan kaliyaha oo kaliya, waxay fadhiisan karaan meel kasta oo ka mid ah kaadimareenka. Hadday tahay kaadi haysta, tuumbooyinka kaadida ka soo qaada kaliyaha, iyo inta u dhaxaysa kaadi haysta iyo ibta kaadidu ka soo baxayso. Waxaa jira qodobo caawiya ama ka qayb qaata in dhagaxaantu ku samaysmaan kaliyaha ama kaadimareenka. Waxaa ka mid ah qodobadaas fuuqbax ama biyaha oo jidhkaada ku yaraada, sida qofka oo hawl adag qabtay, biyo badan ay ka baxeen isla markaana aanu wax biyaa cabin, iyo qofka oo sidiisaba aan biyaha cabin ama aan joogtayn. Caabuq ku dhaca kaliyaha iyo kaadimareenka, xanibaad ama xidhnaansho ku dhaca kaadimareenka oo loo yaqaano urinary tract obstruction, iyo dhowr qodob oo kale sida borotiinka oo la badsaday cudurro la kala dhaxlo. Dadka fadhigoodu badan yahay ee saacado badan fadhiya waxay halis ugu jiraan dhagaxaanta kaliyaha kuwa fadhigoodu yar yahay. Maxaad isku ogaan kartaa inay dhagaxaan ku fadhiyaan kaliyaha ama kaadimareenka? Waxaa dhacda marmarka qaar inaadan is-ogaanba oo wax calaamadaha aanad isu arag. Markaasina waa marka dhagaxaantu yaryar yihiin oo kaadida ay iska soo raacaan iyagoo aan wax xanuun kugu keenin. Xanuun aad ah oo dhabarka ah ama dhinacyada ah oo marka qaarna hoos u dega, taasoo macnaheedu yahay inuu dhagaxu meeshiisa ka guurayo oo xagga kaadida haysta u sii socdo. Kaadida oo ku gubta, kaadida oo ku dhibta ama aad xajin kari weydo, matag iyo yalaalugo oo isku aragto, kaadida oo midabkeedu isbedelo, dhiig la socdo, mararka qaarna noqota boodhboodh oo kale, guduud ama casaan. Calaamadahaas waa calaamado lagu garto in dhagax uu ku samaysmay kaliyahaaga. Qaabkee ayaad uga hortagi kartaa inay dhagaxaan ku samaysmaan kaliyahaaga iyo kaadimareenkaba? Kol haddii aad fahantay waxay dhagaxaantu ku imanayaan, waa kuu fududaanaysaa inaad fahanto qaabkii aad iskaga ilaalin lahayd. Taladayduna waxa weeyaan biyaha cabistoodood basato. Taasi waxay keenaysaa in kaadidu ay badhax noqoto, macdantu weydo jaanis ay isugu timaado si ay u samaysanto. Qofka oo dhima miisaanka, cayilaada ama baruurta badan waxay keentaa ama ka qayb qaata in jidhkaagu biyaha ku yaraadaan. Taasina waxay keenaysaa in dhagaxaantii samaysmaan. Dhandhanaanka badan iyo borotiinka sida hilibkood yarayso kolkaas aragto inaad leedahay kaliya xanuun. Qaabka loo daweeyo dhagaxaanta kaliyaha iyo kaadimareenka fadhiista.
dhagaxaanta kaliyaha fadhiista ama kaadi mareenku waxay keeni karaan inay xidhaan kaadi mareenka oo ay kaadidiiba soo dhaafi weydo, waxaanay keenaysaa in qofku kaliyuhu waaweynaadaan oo xanuun joogta uu yeesho. marka la daaweynayo dhagaxaanta kaliyaha iyo kaadi mareenka fadhiista, dhowr dariiqo ayaa loo maraa. dhagaxaanta yaryar wax daaweyna uma baahna ee iyaga ayaa iskood kaadida isaga soo raaca. dhagaxaanta waaweyn maanta qalab badan ayaa loo adeegsadaa soo saaristooda. mar la burburiyo dhagaxii iyada oo aan qofkii la qalin, se maanta dhulkeena qalin uunbaa la adeegsadaa inta badan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. la wadaag asxaabta si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. channelkana subscribe garee si aad ula socoto barnaamijyada aanu soo gelino.